xaflada ballaaran oo loo sameeyay furitaankii dabaqa cusub ee Xafsa binta Siriin ayaa culimadii ka soo qayb gashay waxa ka mid ahaa aabaha dacwada Gaarisa Sheekh Maxamed Cabdi Ilka Dahable madin hadda ka hor haween intii islaamaan aniga waxay is'uursadaan diintii isu taagaan ay ka bilaato meeshooda taariikhda Soomaaliya kuma maqan sagaashan baa ii buuxsan sidaa daraaddeed laakiin ani markii dadaalkaygu wuxuu ahaa haweenkan guryaha lagu xidhay ee nimankan intay u tagaan dhihi ninkii ama kugu diraa mise waan kaa furaa mise waxbaad iseen inaan ka bixiyo sixirka ka bixiyo oo diintooda bartaan oo siday ilaahay u caabudi lahaan bartaan oo waxaan ilaahay ahayn inuusan wax u tari karin ama wax yeeli karin ay bartaan yaa qasadkayga ahaa حوالك دور ما أنا هاي دي إلهي بقولي كل سنة ما أنا هاي تينا إلهي إنك إلهي سبحانه وتعالى هوينك قلبي هو اللي دين تبص وجيري نكي دمعة إنه أنت إذا قفك سنة أبا أنت أصاب يا كل جوي ما حد يبغى لي يجري سيدا ثلاثة هذا ترى مركب أنا مش أذكر خير نكي سكون دبر جميع أو بالله أو دينين Sheekh Ismaaciil Cali ayaa sheegay in uu si weyn ugu faraxsan yahay guusha ay gaareen hablaha Xafsa binta Siriin. guul wanaagsan ma aragnaa waan aad ugu faraxsanahay waana ugu tahniyeenaa inay shaqo fiican oo loo baahnaa oo maqnayd inay qabtaan aad ugu faraxsanahay magaaladana arintaas guusha waa ka muuqata ilaahayna si waafajiyo ganacsade aadan Yuusuf Sagaar ayaa dhismahan Xafsa binta Siriin ku tilmaamay guul weyn oo ay ku tallaabsadeen hablaha Xafsa binta Siriin guul weyn oo Soomaali hadda ka hor ayna gaarin oo la gaaray baan markaa wax ka wanaagsan waxa maanta aan fadhino rag baan u fadhin jirnay rag baan la hadli jirnay maanta indhahanaga waxay qabteen in haweenka ismaamuleen ay u istaageen diintooda wax loo ooyo oo lagu farxana ay tahay baan aaminsanahay si kastaba ha ahaatee dabaqan cusub ee xariga laga jaray ayaa la filayaa in uu daboolo baahi badan oo ka jirtay xagga fasalada